طبعا ودنيada iyo Soomaaliya iyo waaqica hadda dalka uu marayo iyo umada Soomaaliyeedba waanu iman doonaa wali waxaan ka soo hadlaynaa taariikhiyan dawladii ugu horeysay ee Nabi Maxamed Madiina markii uu tagay uu dhisay waatii Madiina ay ku noolaayeen muslimiin munaafiqiin iyo kuwa kale oo aan intaba yuhuud kamid ahayd ka waran dawladdaas dhismaheeda iyo wadaniyada sida la isla wadaagaya wax ila qaada dhankaas wadaniyada ma ka jirto aad baad ugu maasantaa su'aashaasna waa su'aal runtii aad u wajiih ah awas adar waxa waaye dalku markasta waxa wada digi kara oo wada yeelan kara dad aan isku diin ahayn waa arrin dabiici ah لأنه dadku inay diin yeeshaan aqoon yeeshaan wax ilaahay bixiyo waay dalkana ilaahay baa dhiga dadkan asaa ku beera wax bani aadamku ay sidii harqaanka dharka la talaayo kala iyagu ay tafsiiriyaan ay say rabaan u dhigi karaan ma aha bal halka qoys ayaa kala diin noqon kara لأنه هداية إلهي باقرة إلهي بعد دور إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء آية القرآن كنا محمد صلى الله عليه وسلم مركا مقالة المدينة قبل الإسلام قبل أنت النبي قلت صلى الله عليه وسلم مقالة الجاهلية وقالت أنت هاد وعلى ذاك جيران أو سيأخذ الإسكولايان وعرب هاي يهودنا حب بدن كل هذا يأد الصدقون مع الغوين إكيين مركا النبي قلت سهاجر صلى الله عليه وسلم انتو سهاجر كار تضواتن iyo saddex nin iyo laba gabdhood oo bay'ad kula soo galeen sanadkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam markii kula soo bay'ad kula soo galeen aysan iyagu waliba wafdi 500 qof ka kooban ku dhex jira oo 325 ay gaal 425 ay gaal yihiin aqlabiyadu ay gaalata waas mujtamaci kiibadeen oo wada gaalayahayba bi'adaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yimid Madiina bi'a kufrigu badan yahay gaalada ay badan tahay muslimiinta ay yariin laakiin awoodda muslimiinta ay gacanta ku haystaan sidii u haystaan النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والنبي قال يا هرت استجاد الاسلام كوجامنا الدوله اسا حق ايتا انه هوجاميه اسا تلده هاي dadka meesha degan laba ugaasi lahaayeen waaweyn labada ugaasa soo islaamtay arabtana waxa dhaqan u ahaaday ka qabiilka ama ugaasku meesha uu maray inay wada maraan qofkii diin ahaan umar waayo aqdiis si kale u haysta say u taala laakiin protokolka qabiilka labada saax barsan Sa'd ibn Ubaada iyo Sa'd ibn Mu'aad labadana soo islaamay bifadlillahi ta'ala marka sidaas marka waxa waajib noqdo dawladda marka in dawlad islaamiga meesha ka dhalato laakiin mujtamac intooda badan aysan rumaysnayn oo in badan ay gaalo tahay inkasto islaamku marka nabigu yimid sallallahu alayhi wasallam aad u fiday marka waxa ka dhaxay wada ilaalinayeen marka dalka wada ilaalinayeen dal jacaylka wada ilaalinayeen Madiina caasimadda ah iyo dhulka raacsan oo dhan inuu yahay dhul dawladda ay leedahay oo dalka ka wada dhaxeeyo dawladdu waa dawlad islaam laakiin dadka muslimiin inay wada muslimiin ahadan qasab ma ahan mar ahayn marka halkaas nabigu sallallahu alayhi wasallam si uu markiiba u ilaaliyo wuxuu sameeyay wasiiqa ama mucaahada waxa la yiraahdaa jaartarka oo wadaniga ama carabi lagu yiraahdo aqd wadani يعني maxaan ku yiraahdaa dastuur wadani ah isfahamka wixii lagu heshiiyay lagu ballamo dadkaas ballamo ay sameystaan oo isku og yihiin runtii bunuud taariikhi ah oo xataa dawladaha casriga aysan gaarin qaarkood ayuu u sameeyay nabigu sallallahu alayhi wasallam reer Madiina wax yar aan ka soo qaadanayna oo aad u kooban laano waa wasiiqa kaliya muxaadaro mudan laga dhigo soo dhawo waxa kamid ah nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka sameeyay in dadkaas meesha jooga oo dalku ka dhaxeeyo laakiin aan isku diin ahayn inay laga maarmaanta in loo maareeyo wax yaabaha ay kala leeyihiin waxay wada leeyihiin marka wasiiqadu waxay xambaarsan tahay waxay wada leeyihiin waxay kala leeyihiin laakiin dalka ka wada dhaxeeyo waxa kamid ah marka nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu yiri وبينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة dadka magaalada Madiina oo balanta nabigu wuxuu kala sameeyay yahuud iyo muslimiin لانه عربtu qaarna gaalay ahaayeen qaarna muslimiin ahaayeen wixii muslimiin waxay raacsan yihiin dawladda islaamka wixii yahuudoobay oo arab bani awf ay kamideen iyo kale aad fara badan yahuuda wakiil ka ah meesha diin kale kama jirto islaam لانه islaamku ma aqoonsan diin samaawi ahayn kufriga lama aqoonsan kufrigu diin ma aha wataniyada dhagax la caabuday diin ma aha marka diinta sharciga watan islaamka yahuudiyaduna waa diin hore oo hore u jiri jirtay oo munxarif ah laga dhigay waa diin la aqoonsan yahay oo ahlu kitaab oo gabdhahooda la guursanayo waxay baraayeen la cunayo ila akhri laakiin diin sharci ma aha waa la nasakh diintaas oo hada diin ilaahay lagu caabudo kara ma aha marka wuxuu yiri inna baynahum an-nasr ala man harab ahli hadhihi al-wathiqa horta cid weerar ku ah dadka deegaankan inay dagaalka la wada galaan ومعاهدة كمثال معناها الدفاع عن الوطن وطنك إلا وذا الدفاع إذن ليسكو عقيدة أهين النبي جدي صلى الله عليه وسلم وحكى له كمذا العدل والنصرة للمظلوم قف كل قردرين إذن دين الله فيرين يهودي هذا نصراني هذا أتباع هذا مواليد هذا ضمك هذا إن لو قرقا انقرب للسية معنا انقرب للسية وماشي عدل أو كجره وأن عدل درها الأوقلاني من نوع ربطها هاتو
nabigu wuxuu kala garqaadi jiray yahuud iyo muslimiin markaas marka qaarkood muslimiinta inta qardarada la saaray ayaa yahuudka la xukumi jiray si qaaso islaami jireen waxaa kaloo kamid ahay lilyahuudi diinuhum walilmuslimiina diinuhum muslimiintuna diintooda ay leeyihiin yahuudina diintooda ay leeyihiin macaabidooda ay tagayaan ay ku cibaadaysanayaan muslimiinta masaajidooda ay tagayaan la isku xadgudbi maayo ayaa kamid ah wasiiqat almadiina nabigu saxiix sallallahu alayhi wasallam ama ogolaaday waxaa kaloo kamid ahayd wa inna min baynahum an-nusxu wan-nasiixa duuna al-ithmi waxaa kaloo u dhaxaysa inay isxariiriyaan isjeclaadaan isu martiyaan wax isu hadiyeeyaan isu nasiixeeyaan wax kastoo wanaaga dhexdooda duuna al-ithmi wal-cudwaan laakiin xadgudub iskuma samayn karaan mas dulmi karaan yani waa habdhaqankii ayaa loo diyaarinayaa waxaa kaloo ugu dambeyn kamid ahayd walaa yujaaru qurayshun walaa man yunaasiruhaa quraysh marka waa dal cadow ah waaye oo lala dirirsan yahay maka waana nabiga qabiilkiisa ugu hoday isagoo quraysh waaye laakiin qabiilkiisu islaamkay la dirirsan yihiin yuhuuddiba xilfi la samaystay qaraabadiisii oo gaalo ah oo la dirirsanna wuxuu wasiiqada ku qoray lama magan gali karo lamana soo dhawey karo iyo iyaga iyo cid kasta oo iyaga u nusraynaysaba yani cadow waaye marka halkaa waxaad ka garanaysaa markasta wadaniyaddu inay dad isku wadan ah oo aan isxigin diin ahaan iyo qabiil ahaan inay iska xigaan kuwa isla dhasho walaalaha laakiin cadow dalkaas qaarkood qaar kale ay ku yihiin ugu dambeyntii waxaa kaloo kamid a وألا يخرج أحد من اليهود إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان قضب هذا مهمة وقضب يعني حق أمنك ما أنت حلقة قاعدنا يا دولتها عصرية بس بورهذا مركز الله سميستي وبورهذا لقى بحايا عد أن دولد أوجين إني صدقك كبيحك ولا تدوري لكن نبقى بالله صلى الله عليه وسلم وحولي عد كستا أو يهود بحيسة طبعا المسلمين تنساسوا كلا هايان وإني لسعتها دولد وقتها halkaas waxa la riqaab al-amniya leeyahay laano waxa laga baqay yahuudu inay fadqada soo sameeyaan wayna sameyn doonaan oo way sameeyeen ba ficil waa hooshii socdaalka iyo amniga iyo dinsiyadaha iyo in la ilaaliyo amniga wadaniga